siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwa maanta jooga iyo kuwii hore inaysan marnaba darsi aysan ka baran qolo walbana ay doonayso in ay markaas bursi ay kursiga ku sii joogto haddaba waxaynu ku eegi doonaa barnaamijkan sidee xilligan kala guurka qalalaasa siyaasadeed iyo faaruq siyaasadeed loogaga baaqsadaa oo gidi socodka siyaasaddu u socdaa dadka iyo dalkana la isugu hayaa doorasho lagu midaysan yahay la isku waafaqsan yahay aragti midaysan laga leeyahayna dalku uu galaa hadday noqon lahayd teennadii oo la leeyahay lama huraan waa cawska jilaal iyo midda madaxweynuhu uu gadayey ee wakhtigeedii gabaabsiga uu yahay iyo qof iyo cod ah qodobka labaad aanu diiradda saari doonaa waxa uu yahay haddii doorasho qof iyo coda la aadayaa la yidhaahdo nidaamkii qabaliga ahaa 4.5 kale arrintu ay ku jaango'an tahay sidee ayay isu keenayaan iyo arrimo kale oo xasaasi ah jimco wanaagsan iyo jawi degan waa 23 bisha afraad sanadka 2026 halkaani waa Brit Somali TV meel kastoo dunida ka joogtaan soo dhawaada Ambassador Maxamed Caalim ayaa aad iyo aad ula socday arrimahan qoraallo waaweyn oo bulshadu ay aad u akhrisanayeen maalmihii la soo dhaafay iyo toddobaadyadii la soo dhaafay barnaamijka ku qorayay bartiisa Facebook Ambassador soo dhawow walaalkay Cabdixafiid waa ku salaam adiga teamkaaga Brit Somali TV iyo dhammaan dadka daawada barnaamijka Afrika applicationka lacag dirista degdega ah ee MyRemit muddaan sugayo maamuus ee shirkadda Hormuud nin weyn weeye nina qowl ayaa xira ayaa la yiri dumarna xarig waqtigeedii oo la gaarin qayladu waa maxay waxa weeye dadkan daawanaya si noo fahmaan ama dadka Soomaalida marka hore Xasan Sheekh muxuu doonaya qofku waa in la ogaadaa moogtahay madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne hore soo maray 4 sano joogay oo New Deal-ka maamul goboleedyadu sameeyay dastuurka mataqaana dib u eegis ku sameeyay xukuumaddu sameeyay wasaarayaal kala gedisan mataqaana haddana mucaarad buu noqday golihii musharaxiintu noqday mucaarad sharci ku adag buu noqday mataqaana idaacad kasta taagan farmaajo wax ku dhaleeceeyay saraakiisha ciidamo dhaleeceeyay waxa weeye hadda waa nin mataqaana macallin ahaa dalka aan ka bixin ilaahay cimrigu siiyey marka dadku muxuu doonayaa waxuu ka qoomeeyad waxa weeye qofku qoomeeyo waxa weeye qofku wixii uu ku fikirayay waxaan ahayn maxaa ka mid ah hadda hadalkaa uu ka yiri masaajidka haddii biri fursadu timaado oo uu meeshii uu shalay madaxweynaha ka ahaa haddana mucaarad ku noqdo fursad kale laga dhegaysan maayo oo maxaa dhacay masaajid buu ka yiri aruur shaytoonka May ka hor 3 saacadood haystaa waxbaan diyaarinay hadduu markaa diyaarin lahaa doorashooyin dadban maanta madaxweyne kursigiisa uu soo noqon lahaa hadduu diyaarin lahaa doorasho qof iyo codad maamul goboleedyada ah waxa weeye qofna kuma eedeyn karo maxamed xasan sheekh maxamed dadku isagaa xilka soo doontay isagaa madaxweyne hore ahaa isagaa mucaaradnimo sameeyey isagaa mucaaradnimadiisu ahayd mid sharciga ku adag mid xuquuqda ku adag mid jirta intii uu ka hadlayay inuu cabirtaaj mudo uu cabiray marka waxa weeye si mataqaana ay dadku noo fahmaan waxa weeye madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegayo dhan waa wax isagu uu biri ka shaqaynayo oo maxaa dhacay waxa weeye isagu nin waayo arag ah siyaasi ah deegaankiisii jooga dadkiisii la jooga in dowladnimada uu arko isaga kaliya hadda waxa burburaya baarlamaankii la soo doonay golaha sharci dejinta qaab lagu soo dooran lama garanayo haddii hadda uu mandate ka dhamaado baarlamaanka mandate ka dhamaado xukuumad si loo dhiso lama yaqaan beelihii iyo qaabkii 4.5 ka ahaa ee heshiiska siyaasadeed ahaa meeshii kama bixi karo oo hadda waxa weeye waa koonfur galbeed xisbigiisa tegey UBC mataqaana muxuu ahaa xisbigiisu waxa weeye wuxuu leeyahay marifle unbaa sharaxi karaa nin hadama aadamnimadu sharaxi karaa biyama looma ogola digri mirf looma ogola marka haddii doorashadu ay tii u egtay kursiga madaxweynaha waxaa isku sharaxi karaa uu daarood iyo hawiye beelaha kale ma soo geli karaan waxyaalo badan baa jira marka waxa weeye waxa laga burburaya Pastor arrinta ku saabsan labada qabiil ee kursiga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u tartama arrin Xasan Sheekh Maxamuud isagu uu eedeeda leeyahay malaha Soomahan wayna ka horeysay wayna ka dambeysay xilligiisiina way jirtay nidaam Soomaalidu ay la timid ayuu ahaa nidaamka 4.5 ka sida loogu gudbi karaana waa qof iyo cod oo markaa ummadda Soomaaliyeed ayagoon isku deegaan ahayn ay siyaasad ku doortaan tusaale ahaan nin Gurceel ka soo jeeda nin Baydhabo ka soo jeeda uu doorto nin Boosaaso ka soo jeedana uu doorto nin Baydhabo ka soo jeeda oo siyaasad ahaan dadku ay isku raacaan
nidaamkaasna ma muuqdo inuu suurtagelayo waqtiga harayna warkiisaba daa marka arrin xasan ku eedeysan yahay ma aha soo maahan arrinta 4.5ka ee labadaas qoys ay ku tartamaan Great products, spark great business. 200 million plus items, 5,900 plus categories. ما أنا حسب واحد كود دور الشقة في عضع وجور منه مواد دوان جريشن أو مواد العضين اللي يقول ما وحي هذا يسوون بيلي له على مدية كرسية أما هنقول دور الشقة هذا حسبية وهذا الحسبي سكرة أما هنقول دور الشقة حسبية بقرة أما هنقول دور الشقة ضد هالنقطة إلا هذه الشيء كسياسات عرفت لك سوق هذه اللي إحنا لما تنك السنة حسن الشيخ محمود شور ما هو دور الشيء سقف يعود كل جيه مثل أمضى كسارة يسا الموادين كالصومال والعطكي سكولي هو شخص عبدي أمرك حسن يوسف فاضبه هذا وحلو قصبيه هدول حلوان كل ما يوقفوا يا بايبيل هدول كل ما يبلعوا وقولنا بايبيل هدول كل ما يفعلوا قرنا بايبيل فكان وح معنا مكانيس ومدينا يجي سرعة رغم الحوينه ومدون هالشيء وهالشيء ما قرن كرو ومدون دستور كل شيء دستور كل شيء ما نهي كرو دستور كان لما يسترد دستور وين نبي دستور كل سؤال نبي ما قرن كرو يسوي محكمة دستورية من نقول كرو مركا حوي وريح بالحفظ وحياله بدن أيوه حسن دوش إسكسارية تذكر حوي وحبر برية وتذكر شيء وهذه كلمة متي بوذا ببربريسة وجبلا ببربريسة ومثلا براد ببربريسة ودتك waxay isku yihiin ay kala tagayeen maxaa dhacay Soomaali waa beelo marka hadii beel waxaad ku doonaysaa laba garanayo xasan leey maxaa dhacay dalku wuxuu u baahan yahay deganaansho siyaasadeed ilaahay 4 sano ku siiyay 4 sano fursada ka faa'iideysan leey kama faa'iideysan hadda kubadda Saudi doorashada aad hadii ilaahay marka ilaahay ku siinayo qofna ku badil kare qadada abdiye doorasho ma aadayo warta baarlamaanka burburaya war maamulka gobolada burburaya والحكومات بربريس والبيلي بس قبصرية روحوا مدحتوية لقى سوق قبتي متقارنة جبهة هي متقارنة قرنكا هي بربريس ما كان دودا سوى دودا إجدادك وحجرك كده اللي من الحين حصلوا كل جنبتي وإحنا نقول لي ويا قرت إن السنة هاي أو دولة عيد قارة يستن لهين لكن أرنتو 4.5 كمدحوين أرنتو على هذا قف يعود كمدحوينها يا رئيس الوزراء وحمود دا أرنتاس إني دونيان إن أي أن دب لوجو نقولين تن الذي وقت حري مركل إيه حارد ماشي إيه مريسو حدي قف يعود لآذيو أنتي دون تو ذلك هلا قبض جبل لنا ماك لنا قبل دونه بدل لنا ماك صوحين وكهلينا أنت كلا ذلك أيانو كهلينا أو مركز إسقال سياسة دهان dowladda dhexina la shaqeyso oo laga soo bilaabo SSC Khartoum oo haatan maamul goboleed u diga rogatay meesha la yiraahdo Hirshabelle iyo waliba Galmudug xaaladda kale oo la socona gobolka Banaadir iyo inta kale soo hartay intii dowladdu ay gaari karto inta doorasho qof iyo coda in laga qabto waxa guddigu ah in la isku waafaqo ammaankiina la sugo la iskuna waafaqsan yahay isla mar ahaantaasna waqti lagu daro maadaama waqti madaxweynaha hore inta lagu qaban kara aysan jirin dowladii ka horeysay waqti waa loogu daray tii ka sii horeysay waqti waa loogu sii daray Sheekh Shariif oo hayeen kastoo aad u yaray xilliga Sheekh Shariif xaaladuna ay tan ka duwaneyd ma ku muuqataa in waqti lagu daro dooda sheegaysa sanad ha ahaato 6 bilood ha ahaato 8 bilood ha ahaato wax lagu diyaariyo oo nidaamkan qabiiliga looga guuro oo dowladda cusub ee dhalata ama xasan soo noqdo ama cid kale calaf u galaha qabatee أي ماشاس كسي أم بقادم وكم مقطعي. أنا وحن يموضة أغلب وناك وحو شيرية. الحين حسن محمود ما نديت يسجع للسي يسجع قصور هري يسجع أفضل طبقاتي برلمان ما نديت بالسي حكومة ما نديت بالسي هذا بروبلم كتير اللي سلف فهموه. الحين حسن يسجع يري ملاحظ ما من قولين يسكتشوجا تدخل ما يقرن. الحين حسن يسجع الدستور هو صورنا ما يسترد. دكتور أيوش ودكتور ما يقرأ. الحين حسي إسقى يري محور حزبية اللي هذه حزب يسكلي وصبيست. تتكلم أي صبيست. الحين حسي إسقى يري
لكن dadka xisbiyada ciidu kuma hortaagna ambassador ah qofkii raba inuu xisbi samaysto shahaado qaadanaya xisbi samaysanaya dan xisbirana waa jiraan hadda xisbi weyn jiray baan ku leeyahay isaga yidii hal xilaba xisbi ma sharci kan isaga waxaan keenay xisbi